يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله واللي عجب معك haweenaydatan waxay ahay mid ku sallida nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam 3 jeer kadib markay geeriyootay oo meydkeedii la dhigay qabriga mucjisadii weyneed ee lagu arkay maxay noqotay qisada tani waxay ku cadaynaysaa fadliga iyo fogaanshaha dheer ee ballaaran ee uu leeyahay saliga nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam si fiican u dhagayso casharka kan bilowga ilaa dhammaadka si aad uga faa'iidaysatid ilaahay idinkiis casharkani waa mid muhiim ah oo laga yaabo qodobo iyo arrimo noloshaada bedela inaad ka faa'iidid gabadha tani waxay lahayd dhaqan lala yaabay sida qisadani lagu sheegay waxay ahayd gabadhaani wakhtigii hore ee nolosheeda mid aan diinta ka amar qaadan oo bimacnaa xijaabkii iyo asturnaantii gabadha mu'minadda lagu yaqaanay waa ay ka tagtay oo dhallinyaro ayay iska noqotay waxay rabtay iska samayso iyadoo markaasi aaminsan inay xor tahay nolosheedana ka faa'iidaysanaysa dhallinyaraday la saaxiib tahay waa kuwa aad iyo aad ayaguna saaxiibbo xunxun u ah maalin maalmaha ka mida waxaa ku dhacay gabadhaani dhacdo la yaab noqotay dhacdadaasi waxay ahayd shil ku dhacay gabadha tan taasoo keentay inay weydo qacmaheeda mid ka mid ah iyadoo markii dambe noqotay gabar hal qacan leh oo qacantii kale ay ka go'day iyadoo sidaa tahay haddana oo qof intuu shil galo jidhkiisa qayb waayey ay xanuun badan tahay ayaa gabadhaani waxay tidhi dhacdadaasi igu dhacday aniga faa'iido ayay igu fadhidaa waxayna ku dartay hadalkaasi noloshayda dhacdadaasi kadib waxay isku beddeshay si wanaagsan shilkaasi kadib ee qacanteeda ay ku weyday gabadha tan waxay noqotay inay tukato markii ugu horraysay nolosheeda qur-aankana la saaxiibto akhriso xijaabkii bay xiratay saaxiibbadii xunxumaana waa ka fogaatay mararka qaarna waxaa laysdhihi karaa saaxiibbadeed ayagaaba ka fogaaday le'anna markaasi waxay u arkaan inay tahay gabar naafa ah oo ayna cidna danaynayn maadaama qacanteedii ay go'day le'anna maxaa yeelay saaxiibbada qaar markaad quruxsan tahay oo dhammaystiran tahay faraxsan tahay ayay garbahaada ka muuqdaan dhacda markay kugu timaado si kaley ku arkayaan isbeddel baanad ka arkaysaa waxay tidhi noloshayda bilowgeedii waan la yaabanaa dhacdadaasi kadib sida noloshayda isu beddeshay ayaana la yaabay dhaqamada wanaagsan ee gabadhaani yeelatay dhacdadaasi kadib waxaa ka mid ah inay mar walba sidaa markay hurdada uga soo toosto rasuulka ilaahay ku sallido calayhi salaatu wasalaam caado iyo dhaqan iyo shaqo aysan hilmaamin weeye sidaasba markay hurdada uga soo kacdo iyadoon wax kala xasuusan meel kalena fiirin dhaqdhaqaaq kalena samayn ayay nebi moxamed ku sallinaysaa calayhi salaatu wasalaam carabkeeda iyo qalbigeeda dhammaan jidhkeedaaba la qabsaday shaqadaas iyadoo xataa mararka qaarkood ku fakerin ayuu carabkeedu soo celcelinayaa salliga nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam wuuna la qabsaday maalmihii waa isbeddeleen bilihii waa isdabagureen iyadoo gabadhu haddana caadadeeda iyo dhaqankeedu sidaas yahay wakhtigaasi waxaa laga yaabaa cibaadooyinka qaar inay ka gaabiso marna ay samayso marna ay ka tagto laakiin salliga rasuulka ilaahay moxamed calayhi salaatu wasalaam marna kama tagto mar waa soomaysaa mar ma soomayso mararka qaarkood salaadeedu waa gelabgelab balse weligeed iyo marna kama tegin inay ku salliso nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maalin walbana weeye dhaqankaas maalinkii dambe gabadhaani waxaa ku dhacay arrin qof kasta aysan seegayn oo ah geeridii iyo ajashu inay soo dhammaato markay dhimatay gabadhaani mucjisooyin baa lagu arkay dadkii goobjoogga ku ahaa iyo kuwii maqlay yaab iyo amakaa ku riday haweenaydii dhaqaysay meydkeeda waxay tidhi markaan galay qolkii uu meydkeedu ku jiray waxaan u galay gabadha tan oo wejigeedu faraxsan yahay bal dhoolla caddaynaysa ilaa aan moodayba inaysa dhiman oo ay nooshahay miyir dobol ay ka soo kacday waxaa moodaysaa inay i aragto oo aniga ii qoslayso waxaa kaloo ka soo baxaya dhinaceeda caraf udug badan oo waxaan ku sifeeyo oo udgoona aysan jirin noloshayda caraftaani ma arag bay tidhi haweenaydii dhaqaysay gabadhan meydkeeda caraftaasoo ka soo baxaysa gabadhan
haddaanan rumaysnayn oo aanan ogayn dhimashada gabadhan waxaan aamini lahaa inayba nooshahayba dhinaca kale walaalkeed oo asagu ahaa midka iil ka dhigay mucjiso kaleu sheegay gabadhan dhaqitaankeedii iyo diyaarinteedii kadib wiilka walaalkeeda wuxuu arkay arrin qariib oo lala yaabay wuxuu yidhi marka qabriga sidaa loo dhigay qiblada markaan rabay inaan u jeediyo madaxeeda meydkii asagaaba isbeddelayba oo bimacnaa qibladii isku jeediyey hanoonba gacan saarin qof kalena uusan qaadin oo ku aadin waxaa markaasi aaminay buu yidhi walaashay inay nooshahay arrinta tani waa arrin ka mida khaatumooyinka wanaagsan wanaagyada walow ha yaraadeenba aad joogtaysid waa ku anfacayaan dhacdadanna waa mid dhacday waxayna tusaysaa wanaagga iyo fadliga barakada uu leeyahay qofka saliga rasuulka sallallahu alayhi wasallam caadaysta wardiyadiisa koobaadna ka dhiga arrimo la yaab leh oo kale ayaa gabadhan laga sheegay geerideedii kadib oo mucjisooyina kuwaasoo lagu farxay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam baraka iyo wanaag buu u yahay qofka la saaxiiba kuwa la saaxiiba saliga rasuulka sallallahu alayhi wasallam qubuurtooda waxay noqonaysaa biidnillaahi kuwa u ifa oo nuur baa la u dhexgelinaya marka ha ka dhigin saliga rasuulka sallallahu alayhi wasallam mid carabkaada ka wax badan baa carabka waa ku sheegnaa faa'iido adduunyo iyo faa'iido aakhira lahayne carabkaada dhadhansii oo ku tababar saliga rasuulka muxamed calayhi salaatu wasalaam caadooyinkiina maalmaha ah ka dhiga saliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam si aad u guulaysataan noloshanu idinkugu fududaato qabrigu idinkugu nuuro xisaabtu ay idinkugu sahlanaato darisna aynu la noqonno nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ana iloominina dadkiina inaad xasuusisaan saliga nebigeenna moxameda calayhi salaatu wasalaam inta uusa casharkaani gaarin la wadaag si ay uga faa'iidaystaan adoo